adduunya u tartamayaan adduunya u kala badinayaan. cali ibn abi aalib radiyallahu anhu ayaa lagu yidhi sif lana addunya adduunyada cali oo bal noo sifee markaasuu ku yidhi ma asifuhaa maxaan iigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi. maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal. bal dadka maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay. inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkii baa daallan oo maalqabeenkii baa daallan oo madaxdii baa daallan oo shucuubtii baa daallan oo hooyaa daallan oo inantii baa daallan oo jaamicigii baa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka ahaa baa daallan kii miyiga joogaa daallan kii diyaaradaha waday baa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bn abi aalib. adduunyada haddaad ii weydiiseen awalkaygu waa daal waa tacab buuhi waa tacab waa daal maba nasanaysaanba. war maa la nastaa ma nasanaysid. wa aakhiruhaa fanaa maxaa ka dambeeya dhammaad ama adiga dhiman ama adduunyada kaa hor dhaqaaqay. xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa. wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquubo adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabay xaaraanteeda. man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xasan buu yidhi. adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi. xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo stress iyo walaahow unbuu ku jiri. ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku jiri isaguna murug. midna xisaabteedii baa dawakhisay midna walwalkeygii baa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa. sidaa maaha. adduunka iskaga meedayneen asxaabta nebigu aakhiraday u tartamayeen jannaday u kala badinayeen. wa fii dalika falyatanafasihi almutanaafisuun. maadaamuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu 3 maalmoodoo isku xigta uu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doonaa. cabdulaahi bnu camar wuxuu raadinayaa ninkani wuxuu ku mutaysa jannada ma sabab 3 habeen markuu martuu ahaa wax acmaaloo ziyaadaah oo inta iyakuba ay qabanayeen dhaafsan markuu ka waayey ayuu yidhi aabbahayna ismaan soo diidine 3 maalmood buu nebigu yidhi ahlaljanna inagu soo bixi doona adigaana noo soo galee camalka aad ahlaljannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaaloo dheeraadoo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi. salaadiina waa 5 waqti baa tukataa saacadaha dambena witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaataliilkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno. markaasuu yidhi huwa maa ra'ayta buu yidhi intaa aad khayrka aad igu aragtay unba anigu aan sameeyaa wax kalama sameeye buu ku yidhi. markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu yidhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogayn. waa maxay? habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa buu yidhi qofna caloolxumo calooshaan ugu hayn.